magaalada Ceergaabana guddoonka gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa waxa uu shahaadooyin guddoonsiiyay arday dhameysatay dugsiga xirfadaha ee Sunrise College ee magaalada Ceergaabo. warbixintan waxaa nooga soo diray Ceergaabo wariyahayaga Cabdinaasir Khalid Saciid. gudoomiyaha gobolka Sanaag Professor Ahmed Mohamed Gelle Dacar ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinay arday dhameysatay dugsiga xirfadaha ee Sunrise College ee magaalada Ceergaabo. waxaana munaasabadan ballaaran goobjoog ka ah madax dhaqameed waayeel waxgarad aqoon-yahano waalidiin ardaydii qalin jabinaysay iyo marti sharaf kale. waxa ugu horreynba madashaasi ka hadlay maamulaha dugsiyada Sunrise College Saciid Ahmed Tamriise ayaa ku dheeraaday aasaaskii dugsiga Sunrise College waxaana uu sheegay in la aasaasay sanadii 2011 waxaana uu sidoo kale xusay in dugsigan ay yihiin dufcadii lixaad oo aasaasnay baahida inaanu ka haqabtiro baahida dadweynuhu ay qabaan. markii hore qorshahayagu wuxuu ahaa luqadda iyo kombiyuutarka inaanu ardayda iyo dadweynaha iyo dhalinyarada inaanu ka haqabto. waxaa sida waraaqaha loo qoro waraaqihii oo dhowr nooc noqonaya qaar dadka madaxda iyo dadka loo qorayo iyo qaar iska dad saaxiibada loo qorayo sida compositionada iyo curisyada loo qoro sidnay xafiis kombiyuutarku nooc uu yahay oo lagu cilad saaro oo anagu aan mas'uul ka nahay aan soo kordhinay gobolka oo kombiyuutar intii meel loo qaadi lahaa nooca uu tahay isla markaana waxaan rajayn doonaa Sunrise College inaan waxyaabo badan sida maamulku sheegay. Professionals, my fellow students and the rest of the audience here in front of you. Yes, and that's notificates the parent as a technology. One who is notificates the same as a backup, and the indicator one is the same as a light. Sunrise College is the best private school in Ceergaabo. Providing different subjects and targets in English and computer science. I am willing to contact for no problem. So I think great about you. To the students from Sunrise College. Today I'm ready to suggest a lecture about time. Time is something so dear that we cannot continue our life without it. Time for us is our stories. You wanted to do anything, the first thing we need to have is a time. Even making use of time in different ways, however, students need to make use of our time. waxayaguna dhammaantood madashaasi ka hadlay Suldaan Cali Yuusuf Cabdi Badacas iyo Boqor Faysal Cismaan Baraag gaashaanle sare Saciid Ducaale Xirso iyo mas'uuliyiin ku hadlaysay afka jaamacadda Bariga Afrika. waalidiin ayaa dhammaantoodba falanqeeyay in dugsiga Sunrise College uu yahay dugsiyada ugu sarreeya gobolka waxaana ay ardaydan qalin jabinaysay kula dardaarmeen inay waxbarashadooda ku anfacaan gobolkooda. waxaana gabagabadii munaasabadan ballaaran ee shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay ardayda dhameysatay dugsiga xirfadaha ee Sunrise College ee magaalada Ceergaabo gudoomiyaha gobolka Sanaag Professor Ahmed Mohamed Gelle Dacar ayaa kula dardaarmay macallimiinta iyo maamulka dugsiga Sunrise College inay xoogga saaraan barashada luqadda afka Soomaaliga oo haatan ka maqan. waxaana uu sidoo kale guddoonku sheegay in dugsiga Sunrise College uu ka mid yahay dugsiyada tayadooda waxbarasho ugu horeyso dhinaca tiknoolajiyadda casriga ah. amaan isku fogaadeen in jiil soo baxay umada waa ka soo gudubtay kaalintii ardayga sanjirisay waxaa ka soo gudubtay kaalintii ay bulshada gelinaayeen shaqooyinka wax ka qabanayeen iyo in halka ka sii biirsataan oo takhasusaadka qaadataan ilaa cimriga caafimaadka ay daayo waalkeena dhallinyarada kastaasiyo dhammaanteena hay lagu sibay inagoo caafimaad qabna dadkeenu yahay bashbashee barwaaqo nabadgelyada lafteeda oo ah security orientations oo ka bixisaan wacyigelin nabadgelyada. Ceergaabo waxay kaga duwan tahay dagaalooyinka kale ama gobolka kaga duwan yahay nabadgelyadeeda ayaa falfeertahay. waxaana intaa kadib guddoonka gobolka Sanaag Professor Gelle Dacar uu shahaadooyinkii guddoonsiiyay ardaydii ka qalin jabisay dugsiga Sunrise College. waxaana dugsiga Sunrise College uu ka mid yahay dugsiyada tayadooda waxbarasho ay ugu sarreyso guud ahaanba gobolka Sanaag iyadoo ay ka howlgalaan macallimiin ajaaniba. waxaana uu maanta markii horeysay deeq waxbarasho siiyay 3 qof oo ka mid ah shaqaalaha laamaha dawladda ee gobolka Sanaag. Cabdinaasir Khalid Saciid, telefishinka caalamiga Somali Channel, magaalada Ceergaabo. ugu dambeyntiina wararka dibadda waxaa ugu weyn madaxweynaha dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir ayaa taariikhda tan iyo markii ay kala go'een